dowladda Puntland ay ka mid tahay sidoo horeba aanu idhi markii aynu ka soo baxnay dagaalka aynu noqon doono laba maamul oo walaalo ah oo aan sidii aan u sheegay ah two twin sisters laba walaalo ah oo iskaaba midba midka kale kaabo kuna wada noolaada wanaag sharaf iyo iscaawin ay iscaawiyaan wixii aragtiya lagu kala duwanaado la isugu dulqaato wixii kale ee ka dhaxeeya ee mabaadi ah ee dhiig leh ee dhaqan leh ee dhalasho lehna aan ahay qof garanaya oo aan ka boodi doonin haddii Ilaahay idmo waxaan rajaynaynaa inaan ku soo kordhin karno waxaa jira khilaafyo u dhaxeeya dowladda federaalka iyo dowladaha ka mid ah ee xubnaha ka ah waxaan isleeyahay haddii si caqliga loo eego oo loo dhaqmo waxbaynu ku kordhin karnaa marka loo eego halka aynu ka joogno ummadda Soomaaliyeed labadaba ama ha noqoto dowladaha dowladda federaalka ama member stateska ha noqoto wixii khilaaf ee jira halka gaaristiisa maamulka dowladda Puntland ay ka mid tahay sidoo horeba aanu idhi markii aynu ka soo baxnay dagaalka aynu noqon doono laba maamul oo walaalo ah oo aan sidii aan u sheegay ah two twin sisters laba walaalo ah oo iskaaba midba midka kale kaabo kuna wada noolaada wanaag sharaf iyo iscaawin ay iscaawiyaan wixii aragtiya lagu kala duwanaado la isugu dulqaato wixii kale ee ka dhaxeeya ee mabaadi ah ee dhiig leh ee dhaqan leh ee dhalasho lehna aan ahay qof garanaya oo aan ka boodi doonin haddii Ilaahay idmo waxaan rajaynaynaa inaan ku soo kordhin karno waxaa jira khilaafyo u dhaxeeya dowladda federaalka iyo dowladaha ka mid ah ee xubnaha ka ah waxaan isleeyahay haddii si caqliga loo eego oo loo dhaqmo waxbaynu ku kordhin karnaa marka loo eego halka aynu ka joogno ummadda Soomaaliyeed labadaba ama ha noqoto dowladaha dowladda federaalka ama member stateska ha noqoto wixii khilaaf ee jira halka gaaristiisa maamulka dowladda Puntland ay ka mid tahay sidoo horeba aanu idhi markii aynu ka soo baxnay dagaalka aynu noqon doono laba maamul oo walaalo ah oo aan sidii aan u sheegay ah two twin sisters laba walaalo ah oo iskaaba midba midka kale kaabo kuna wada noolaada wanaag sharaf iyo iscaawin ay iscaawiyaan wixii aragtiya lagu kala duwanaado la isugu dulqaato wixii kale ee ka dhaxeeya ee mabaadi ah ee dhiig leh ee dhaqan leh ee dhalasho lehna aan ahay qof garanaya oo aan ka boodi doonin haddii Ilaahay idmo waxaan rajaynaynaa inaan ku soo kordhin karno waxaa jira khilaafyo u dhaxeeya dowladda federaalka iyo dowladaha ka mid ah ee xubnaha ka ah waxaan isleeyahay haddii si caqliga loo eego oo loo dhaqmo waxbaynu ku kordhin karnaa marka loo eego halka aynu ka joogno ummadda Soomaaliyeed labadaba ama ha noqoto dowladaha dowladda federaalka ama member stateska ha noqoto wixii khilaaf ee jira halka gaaristiisa maamulka dowladda Puntland ay ka mid tahay sidoo horeba aanu idhi markii aynu ka soo baxnay dagaalka aynu noqon doono laba maamul oo walaalo ah oo aan sidii aan u sheegay ah two twin sisters laba walaalo ah oo iskaaba midba midka kale kaabo kuna wada noolaada wanaag sharaf iyo iscaawin ay iscaawiyaan wixii aragtiya lagu kala duwanaado la isugu dulqaato wixii kale ee ka dhaxeeya ee mabaadi ah ee dhiig leh ee dhaqan leh ee dhalasho lehna aan ahay qof garanaya oo aan ka boodi doonin haddii Ilaahay idmo waxaan rajaynaynaa inaan ku soo kordhin karno waxaa jira khilaafyo u dhaxeeya dowladda federaalka iyo dowladaha ka mid ah ee xubnaha ka ah waxaan isleeyahay haddii si caqliga loo eego oo loo dhaqmo waxbaynu ku kordhin karnaa marka loo eego halka aynu ka joogno ummadda Soomaaliyeed labadaba ama ha noqoto dowladaha dowladda federaalka ama member stateska ha noqoto wixii khilaaf ee jira halka gaaristiisa maamulka dowladda Puntland ay ka mid tahay sidoo horeba aanu idhi markii aynu ka soo baxnay dagaalka aynu noqon doono laba maamul oo walaalo ah oo aan sidii aan u sheegay ah two twin sisters laba walaalo ah oo iskaaba
midba midka kale kaabo kuna wada noolaada wanaag sharaf iyo iscaawin ay iscaawiyaan wixii aragtiya lagu kala duwanaado la isugu dulqaato wixii kale ee ka dhaxeeya ee mabaadi ah ee dhiig leh ee dhaqan leh ee dhalasho lehna aan ahay qof garanaya oo aan ka boodi doonin haddii ilaahay idmo waxaan rajaynaynaa inaan ku soo kordhin karro waxaa jira khilaafyo u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlada ka mid ah ee xubnaha ka ah waxaan is leeyahay haddii si caqliga loo eego oo loo dhaqmo waxbaynu ku kordhin karraa marka loo eego halka aynu ka joogno ummadda Soomaaliyeed labadaba ama ha noqoto dowladaha dowladda federaalka ama member stateska ha noqoto wixii khilaaf ee jira halka gaaristiisa